الملكة إليزابيث waxay indha daboolatay qamiistii la soo dhaafay iyadoo hal mar xitaa aan lugteeda dhigin ama aan lugteeda geenin Israa'iil Yahuuda waliba dadka qaar Elizabeth waxay ku tuhumeen in ay si dadban oo mubaashir ahayn u mucaaradaysa ugana soo horjeeda Israa'iil Yahuuda xalfada arooskooda waxaa lagu baahiyay telefishinada adduunka waxaana daabatay in ka badan 800 milyan oo dad ah daabade maalinta dhulka laga hoos marinayo oo la duugayo Elizabeth nacashka lagu wada waxa lagu qaadaya ama lagu xambaaraya carabadu madfac qadra gaari madfac cagaaran waxaana raacayo 138 badmaaxiye ilaa 2018 oo Amir William xafiidkii boqortooyada Ingiriiska yacni ay ayay u tahay Elizabeth oo ka qayb galay in Britaniya Britishka ay ahaayeen sababta ugu muhiimsan ee horseeday unkida iyo istaajinta wax lagu magacaabo dawladda Israa'iil ama dawladda Yahuuda waxaa la bilaabay ka shaqaynta qorshe la dejiyay 60meeyadii qarnigii la soo dhaafay oo loo bixiyay magaca ah London Bridge is down jisru London saqata ama jisru London qad saqata Elizabeth markii ay mareysay da'da 3 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درد لو قميستي لصدافي وحي أهيد مالين تاريخي أو تاريخه بقرطوية إنجليزكا وانا مالينتي أي الضبولتي بقرة إنجليزكا ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية يذو أي دأذو أهيد لحيو سقاشن سنو كدب تضباطا سنو وحكونا شخصية دان أنا ما انتكهد لربنو ما أهن قف عادئة ما أهن شخصية عادئة سيدا سلامذا إن الدبول الشديدون ما أهن مد عادي ما حيتها قصة سامنتا له oo ay leedahay shakhsiyadan Queen Elizabeth II boqortooyada Ingiriiska waxay ahayd sababta ugu muhiimsan ee sababtay dhisida ama unkida wax lagu magacaabo Israa'iil Yahuuda laakiin arinka gariibka ah oo muthiirka ah waa in Queen Elizabeth aynan weligeed lugteeda dhigin Israa'iil Yahuuda waxaan ula jeedaa aynan weligeed tagin ama booqan Israa'iil Soomaalidu waxay tiraahdaa gaalka dil gartiisana si hadalkan wuxuu jawaab u yahay su'aalo badan oo laga yaabo in la iga soo weydiiyo muuqaalkan aan maanta idin wado I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service. الملكة إليزابيث الثانية وحالقو اعتبارها شخصية ugu waqti xukun dheer ee casrigan aan hadda noolnahay العصر الحديث intaas waxa u dheer boqoradan waxay la casri ahayd oo ay la kulantay 150 xaakim ama madax carab ah iyo 12 shakhsi oo ra'iisul wasaare ka ahaa boqortooyada Ingiriiska oo iyada xukumaysay waxay kaloo la casri ahayd ama ay la kulantay 12 madaxweyne Mareykan ah iyo 7 baadiri masiixi Kirishtan ah intaas waxa u dheer waxa lagu ictibaaraa ama lagu tilmaamay ملكة بريطانيا العظمى ولو يقانو بقرطوية ونن قبل كودعينين وليبا انتاس وحاكالو أسيدير وبقرد بقرطوية ميدودي كندا استراليا إي نيوزيلند يشان إيتبان دولدود لكن هذا دول مستقلة دولة مدح بنانا وإكمد يهين جرينادا يجزر سليمان كوبي لباتنكي أبريل سندكي كون سقال بقل لحي لباتنكي وحالت لي إليزابيث وحانا لقود لي مقالة لندن عاصمة إنجلند آبهد الملك جورج السادس بقر جورجي أو أها جورجي لحاد سببت كانت إن إليزابيث أي كرسي بقرتوية كفريسة وحي أهيد آبهد الملك جورجي ما أونا دلين ويل ذكر سببتاس أوجد إليزابيث وحي مرشح أهيد إن أي ستوسة أو فريسة كرسي بقرتوية كدب آبهد أو أي بقرتوية هو جامسو كدب إليزابيث وحي بالوضي إن أي لا صاحبت أو أي رعد والدين تذا هو يديت يو آبهد أو أي أرعد زيارات أما بوقشوين كرسمي أو أي كتجي جرين جذها يودي بدل كاس إنجليزكا إليزابيث مركي أي مريسي دادا 16 waxay la kulantay Philip oo ahaa wiilkii uu dhalay al-Amir Andrew al-Yunani labadoodna waa ilmo adeer fog oo meel koraad ah kadib xiriir socday dhowr sanad labadoodba way isjeclaadeen waxayna isguursadeen deyrtii 1947 xalfada arooskooda waxaa lagu baahiyay telefishinada adduunka waxaana daabatay in ka badan 800 milyan oo dad ah boqor George wuxuu geeriyooday 6 bishii Febraayo sanadkii 1952 kadib Elizabeth waxay qabatay hogaaminta boqortooyada iyadoo ay da'deedu ahayd 22 sano
Queen Elizabeth markii loo saaray taajka boqortooyada waxay isku dayday in fatrada ama xil xukuumeedkeeda ay ka dhigto fatrada ugu xasriyaysan ee soo martay boqortooyada Ingiriiska. Dadkuna waxay u la xiriiri jirtay si toos ah oo aan baratakol lahayn iyadoo ilaalinaysay taqaaliidka iyo dhaqamada la xiriira boqortooyada. Inkastoo Ingiriiska uu ahaa boqortooyo dastuuri ah, Elizabeth markii ay xukunka qabatay kadib dagaalkii labaad ee adduunka, Ingiriisku wuxuu ahaa imbaraatoriyad weyn oo haysta dalal uu gumaysto oo ay kamid yihiin dhammaan gobolada adduunka, xitaa anaga Soomaali ahaan aan kamid ahayn dalalka ay gumaysan jirtay. Mudane iyo marbu khamiistii la soo dhaafay markii qasriga Buckingham laga cilaamiyay in Elizabeth ay daboolatay, waxaa la bilaabay ka shaqaynta qorshe la dejiyay 60meeyadii qarnigii la soo dhaafay oo loo bixiyay magaca ah London Bridge is down, jisru London saqata ama jisru London qad saqata. daabade maalinka dhulka laga hoos marinayo oo la duugayo Elizabeth nacashka lagu wado waxa lagu qaadaya ama lagu xambaaraya carabadu madfac qadra gaari madfac cagaaran waxaana raacayo oo gaarigaas madfac cagaaran oo dusha laga saaray nacashka Elizabeth waxa la soconayo 138 badmaaxiye. Arintan ama dhaqankan waa caado ama dhaqan u laabanayso almalika Victoria. Markii nacashka la geliyo kaniisada waxa kaamirooyinka laga joojin doonaa baahinta, laakiin wali makaanka iyo lagu duugi rabo Elizabeth ma ahan mid la xaqiijiyay oo xaqiiqsan, ma ahan mid lahu meesha lagu duugi rabo. أما في يوم الجنازة سيحمل نعش الملكة على عربة مدفع خضراء يرافقه 138 بحار، وهو تقليد يعود إلى الملكة فيكتوريا، ثم يذهب الموكب إلى قلعة وينسور، وعندما يتم إدخاله إلى الكنيسة عندها ستتوقف الكاميرات عن البث. boqorka cusub ee Ingiriiska Charles wuxuu ku dhaqaaqayaa jawlad uu ku aaday England iyo Scotland, laakiin maalinkii uu Charles kursiga boqortooyada ku fariisto waxa isbedel ku imaanayo kelmadaha heesta calanka ee boqortooyada Ingiriiska. Waxa la bedelayaa magac boqorada in la laabatay, waxaana lagu kabayaa boqorka cusub oo ah Charles. Mudane iyo marbu nuqtada ugu muhiimsan muuqaalkan oo waliba aan muuqaalkan u sameeyay hadeer ayaan isla soo gaarnay oo ah arinka macruufka ah oo laga barhayo waxa kamid ah in Britaniya Britishka ay ahaayeen sababta ugu muhiimsan ee horseeday unkida iyo istaajinta wax lagu magacaabo dawladda Israa'iil ama dawladda Yahuuda. Wuxuuna ahaa markii lagu gudi jiray wacdu Balfour, balankii Balfour oo ay soo saartay xukuumadda Ingiriiska inta lagu gudi jiray dagaalkii koowaad ee adduunka. Hadafyada laga lahaa waxa kamid ahaa ku dhawaaqida taageerida aasaasida dawladda Yahuud ah ama dawlad Israa'iil ah ama sida ay ku magacaabeen wadan qowmi ah oo ay shacabku Yahuudu leeyihiin, watan qowmi lishacb al-Yahudi. makaanka ama booska ay u doorteen wuxuu ahaa Filistiin oo aan wax yar uga hadalnay muuqaalkan ka horeeyay. markii Elizabeth ay ku fariisatay kursiga boqortooyada waxay tagtay ama ay booqatay in ka badan 120 dawladood oo ka tirsan dawladaha caalamka, laakiin arinka qariibka ah oo la yaabkana leh oo waliba muhiirka ah waa in almalika Elizabeth الثانية boqorada Ingiriiska aynan weligeed tagin ama booqan Israa'iil. sida ay kursigaas ugu fariisatay hal mar xitaa ma aynan tagin mana booqan Israa'iil ama Yahuuda. waana arinka qariibka ah oo dhammaan dadweynaha adduunka ilaa hadda ay la yaaban yihiin in aynan boqorada tagin ama booqan Israa'iil. waxayna inda daboolatay khamiistii la soo dhaafay iyadoo waliba ilaalinaysay balankaas iyo go'aankaas ah in aynan weligeed tagin ama booqan Israa'iil. arinkan wuxuu dhaliyay tasaa'ulaad iyo isweydiimo fara badan. waliba dadka qaar Elizabeth waxay ku tuhumeen in ay si dadban oo mubaashir ahayn u mucaaradaysay ugana soo horjeeda Israa'iil Yahuuda. arinkan oo ah in aan Israa'iil ama Yahuuda la booqan ama aan la tagin ma ahan wax kaliya u go'san oo u gaara Elizabeth, xitaa ma jira hal qof oo kamid ah al-Aila al-Malakiyya qoyska boqortooyada Ingiriiska oo booqday ama tagay Israa'iil ilaa 2018 oo Amir William xafiidkii boqortooyada Ingiriiska yacni ay ayay u tahay Elizabeth uu ka qayb galay u dabaaldega sanad guuradii 7aad ee ka soo bareegatay unkida iyo aasaasidda Israa'iil oo ay Ingiriisku aasaaseen. laakiin almalika Elizabeth waxay inda daboolatay khamiistii la soo dhaafay iyadoo hal mar xitaa aan lugteeda dhigin ama aan lugteeda geenin Israa'iil Yahuuda. inkastoo Ingiriisku uu yahay dadkii marka koobaad qabsaday Falastiin sidoo kalena unkay ama aasaasay Israa'iil.
muuqaalkan waa iga intan akhyaarta ku xiran kanaalka garwaaqsi maxay idinla tahay sababta ku hoos duugan ama sabab u ah in boqorada ingiriiska almalika elizabeth athaniya aynan weligeed tagin lugteedana dhigin israa'iil maxay idinla tahay sababta ku hoos duugan in boqorada ingiriiska aynan weligeeda booqan israa'iil almuhim sabab un ayaa jirta xitaa dadka qaar waxay ku tuhmeen in ay mucaaradaysa israa'iil adigana maxay kula tahay maxay kula sabab tahay insha allah kommentiga inoogu la wadaag waana ku soo jawaabi doonaa haddii ilaahay idmo muuqaalkan waxa idin soo diyaariyey anigoo ah Cumar Maxamed waxaana idin soo marsiiyey kanaalka garwaaqsi daabade haddii aad is leedahay kanaalkan garwaaqsi wax u bad ka faa'iidi xitaa hal kalmad bad ka faa'iidi ku soo biir kanaalka subscribe saar siina faafi kanaalka ugu yaraan xitaa hal qof gaarsii linkiga kanaalkan sidoo kale muuqaalka like saar si uu dad badan u gaaro una ogaada macluumaadkan ugana faa'iideystaan waa walaalkiina Cumar Maxamed wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh